باركتي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشينا قيمها بدن هالكذا نجد داونيسان ويوتيوب كدي جي ديرو رمضان مبارك يعني لنا هاي ميل الود نجد داونيسان داودياشا قيمها بدن هدي فيديو كان مركي كوجو ريسيا داركت عمو كوجو عسوبي هاي فضلا حنقع عسولينا سبسكرايب لايك أدنو صارتو دير قلنا ينوت هاي معلومات بدن سيد هالكان وهيشد مركورة وحنا لنا هاي رمضان مبارك ما أنت halkan waxay ugu casuuman saaxiibkayga marna walaalkayga soo dhaw magacaan igu bilaab maxadow aan dhow yahay anigoo maxadow ribid maxadow maanta waxaan ka sheekeysanaynaa ama waa waxyaabo yar aan ka taageeraynaa siyaasadda isqabqabsiga qabyaaladda Soomaaliya ka taagan waad la socotaa xaaladda imika wadankeena hooyo ku sugan yahay xaalad cakiran baa iska jirto dhanka iyo siyaasadda oo la isku haysto dhanka iyo doorashada Soomaaliya bal adigu markaa fiiriso qaabka ay wax u socdaan maxaad ka diiwaan gelisay maxaad ka aragtay bal dhanka ay Soomaaliya xageeda maanta waa la socotaa qodbada madaxweynaha ee la sugaya haweeneyda waatii uu hadallo fara badan uu ka dhawaajinayay marka ummadda Soomaaliyeedna mar way barakacayaan arrimo fara badan banaanbaxyaal waxyaabo fara badan baa jira xaaladdu way cakiran tahay haye macado Soomaaliya walaal daro aad baan isku waxay Soomaaliya aad baan isku waxay والله Soomaali hadaan dhib baan haysta qabyaalad xun baan dilay kaasoo Soomaali inta badan hadana ma fiiriyaan maxaa waxa jirto horta dadka horta xil baa la soo doortaa xil baa qof baa la soo doornay waa daragtay ilaan hadda Kenya aan joogno waa daragtay Brassava jiro governor aan dhahna ama MD waxyaabo jir la soo doorto inta badan qofka marka la soo dooranayo maxaa lagu soo doorashada macnaheedu maxay tahay ilaan dadkan doorashada ayaa waxaa ka qaldan qaabkii wax loo dooranayay oo qabyaalad ahaan bay ka gashay qofka maxaa loo soo doortaa siyaabaha loo soo doorto maxay tahay qofku waxaa loo soo doortaa in wax qabadkiisa zaid in loo arko dadka laakiin waxay fiiraan qabiil iyo qabyaalad diri balse saas hadda Soomaali aanba ka soo qaadnay madaxweynaha Farmaajo waa daragtay wuxuu soo hogaaminayay wadanka muddo 4 sano ah وحلك سوهاي فرماجو بل وحقبتكيسا Soomaalida miyay u baahan tahay mas'aliga ka tanaazul leh waad aragtay hadda rabshado fara badan baa iska dhacay Cabdiraxmaan Cabshukur waad aragtay Cabdi Qaadir Abdisaq John baa soo baxay umad fara badan baa soo baxday Soomaali laakiin haddaan madaxweynaha aan sugaynaa inuu hadlo qodbada madaxweynaha qaar waxay leeyihiin hays casir sida mucaaradka maandhoodii ka dhawaajeen Cabdiraxmaan Cabshukur wuxuu ka dhawaajiyay farmaajo haddii 4 sano oo xilkan wax ku soo qaban waay ama doorasho ku keen waay waa inuu iscaazilo ayuu yiri xilka oo iskaga taga oo ra'iisul wasaaraha Roble uu dhiba iyo asxaabta kale ee baarlamaanka soo jeeda balse taasna farmaajo uu ku soo horjeedo inuu xilka 2 sano ku darsaday hadda 2 sano ayaa la isku haystaa marka adigu sidoo aragtay rayahan farmaajo uu kula saxan yahay in 2 sano ku soo darsado shirkii 17 Febraayo ka dhacay maxaa Baydhabo ayaa ilaa hadda Soomaaliya la daba taagan yahay hal soo celiyay bal arrimahaas ka waran adigu waxa arrimahaas aad bay isku xiriireen balse Soomaaliya hadda sidaan arkayna waxaan waa siyaasadana zaid sisteeda Misr gaari kara balse hadda Soomaaliya hadda madaxweynaha Farmaajo waxana waa qabtay hadaan fiirin balse Soomaalida waxay dadka ay qabteen ma fiiriyaan qabadka lama fiiriyo waa taa oo marka wax qabadka daan la fiirinayna sidee baa qofku lagu soo dooranaya waxaad arkaysaa adiga maxaa doo ribita haddii walaalka uu taagan yahay waxsan qabanin aniga oo DJ Doro walaalkii uu taagan waxa uu qabanin wax inaan fiirino ma qiyaamada mas inaan ku soo doorano Soomaali Maxamed waxa ma fiirinay Soomaali Maxamed waxay fiirinay ninkan waaciday kan waase wax oo adiga oo hadda Soomaali oo hadda isku xiran tahay waa qabiil waa tahay marka shayga qabiil laan in hadda aan ka wada saarno waa tahay bar Soomaalida oo idil kulay in hal madax yeeshaan oo hogaamiyo waa iska fiicnaan bal Soomaali idil maxaa lagu baaqi lahayd ugu dambeyntii Soomaali walba meel ay joogto balse Soomaali hadda waqtiga oo maartay oo qabiil aan fiirnayna bil Ramadan waa lagu jiro waa dad habeen walba banaanbaxa dhacay Muqdisho digaala baa socdo xabada socdo barakacyaal dadka bay zaid bay u barakacay balse laakiin maanta madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa inuu hadal fiican oo natiijo leh u qaado si wanaagsan hadalkaas fiican
waxay kamid tahay inuu waxay u badan tahay 99 adiga inuu xilku iska dhigi doono xilku iska dadka waxay leeyihiin hays casila farmaajo asagoo horta waa dadaalay meelo badan buu galay wuu la fadhiistay maamul goboleedka inuu si wadanka wax uga qaban lahaa waad aragtay Jubbaland waxaa kasoo jeeda Axmed Madoobe si aad bay isku dhigay Puntland oo beri ah si aad baa lagu dhigay marka waxyaabihiisa kulli waa laga soo horjeedaa marka Soomaalidu ugu dambeyn marka baaq ugu dambeeyo Soomaalida iyagoo qabiil fiirnayn inaad ku baaqi lahayd Soomaali maxamed meel kasta oo joogto dal iyo dibadda meel ay joogto maanta waxaan ugu baaqayaa inaan qabiil iyo waxyaalo oo munaasabad inaan ka hadalno oo haddaan sidii wax ku qabsan lahayn oo meel aan ku gaar lahayn inaan wada waa tahay walaalkayga Maxamed Ribit ayaa maanta barnaamijka martin ugu ahaa asxaabteena meel walba ku sugantiin waxaad leenahay waa tahay Soomaaliya kulay xaalka wad la socotaan imika siyaasad iyo isqa qabsi kulay hawl siyaasad ku imaaday iyo taariikhda hore marka dib Soomaalida loo fiiriyo ku dhawaad muddo 30 sano ay burbur xilligii waxaa la joogaa lislaha Soomaali badan meel walba joogtada waxay ka dhawaajeen in burburkii dhibaatooyinka laga baxay Soomaaliya isqabsatay balse markii Soomaali wax yarba u qabsoomina la waad arkaysaan Soomaali in haddana ay dib u sii guranayso xaalku sii xumaanaya ummad badan baa kusoo siyaasad kusoo gubatay oo kusoo dhimatay ama halka lagu waayay sidoo kale dagaala iyo qaran dumis iyo waxyaabo aan jirin halka dhibaatooyin fara badan kala kulmay marka maanta adiga rabshada wadow mid wax ku qabanaya walaalkaaga fiirnin walaalka haduu wax qabanaynin ka tanaasul oo mid wax ku qabanaya wax qabadka muuqdo oo maanta wax qabadkan hal isku raac Soomaaliya sida gacmaha isku dhaqmo balse hadii aad fiirisan in dhibaatooyinka mid waliba qabiilad inta ay nagu jirto maanta horumar ma gaarayna inta ku horeyso waa bahada asxaabta kalena kulli iyaguna qadka ay ku soo jiraan dhamaantood isma dhaafno haddii aad kugu cusub yahay subscribe noo saar isma dhaafno wabillahi tawfiiq.